markale kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa janaalka gaarka ee baa ka cadde haddii aad jeceshahay muuqaaladeena aad hesho fadlan like taabo subscribe na dheh commentina noo raaci gambalaalkana furo si mar walbo aad xogteena u hayso mahadsanid markale warar kale oo ku saabsan showga Hargeysa iyo tartanka adag ee Hodan iyo Farxiyo Kabayare habeenkii Jimcada aynu soo dhaafnay waxaa loolan adag iyo tartan adag ugu bilowday fanaaniinta laba toddobaad gudahood waxa magaalada Hargeysa ka soconayay tartan u dhaxeeya laba fanaan oo la kala yiraahdo Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Farxiyo Kabayare labaduba waxay laba toddobaad oo isku xigay gaareen magaalada Hargeysa halkaas oo lagu soo dhaweeyay laakiin waxa ay bilaabeen isla markiiba qabanqaabada show labaduba ay qabsanayaan Farxiyo Kabayare showgeeda ayaa qabsoomay habeenkii Jimcada ahayd waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska ma aysan noqon kuwo ku qanacsan qaabkay wax u socdeen laakiin Hodan Cabdiraxmaan Dheere ayaa wali waxa la wadaa qabanqaabada showgeeda iyo sidii loo maamuusi lahaa Farxiyo Kabayare showgeedii waxa ka soo qayb galay dad aanu ka badnayn 3,000 Hodan Cabdiraxmaan Dheere ayaana arintaasi ka feejigan in sidaa oo kale ay ku dhacdo oo waxay qorsheynaysaa in sanadka cusub ay ku aadisato si fanaaniin heer caalami ah iyo dad badan ay u hesho labada fanaan ee kaluumaysi ahaan u soo aad Hargeysa ayaa wali ku loolanka adag ee magaalada Hargeysa waxaa socda qabanqaabada xoogan ee showga Hodan Cabdiraxmaan Dheere ay ku doonayso inay ku soo bandhigto taageerada ay ku leedahay Hargeysa iyada oo uu wehelinayo garab ka midig ninkeeda xaajigeeda Mursal Muuse Cumar qaar ka mid ah xidigaha geeska ayaa ku welinaya loolankan adag ee ay ku jirto Hodan Cabdiraxmaan waxaana hadda qabanqaabada ugu weyn ee Hargeysa laga dareemayo ay tahay showga fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheere inkastoo ay imaan karaan fanaaniin kale oo dibadda iyo gudaha dalka ka imaanaya haddana Hodan Cabdiraxmaan ayaa ka timid Mareykanka si ay ula noolaato saaxiibkeeda Mursal Muuse isla markaana show caalami ah ay uga qabato magaalada Hargeysa halkaasi oo ay kula lamaaneed Mursal Muuse waxaana halkaasi ay ku sugnaan doontaa waayahan iyo waqtiyada soo aadan qaar ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska ayaa si weyn uga qayb qaadanaya ololeynta iyo daba socoshada qaabka ugu qabsoomi lahaa showga Hodan Cabdiraxmaan waxaana ay noqonaysaa in Hargeysa uu gilkilo showgaasi isla markaana uu ka duwanaado kii ay qabsatay Farxiyo Kabayare habeenkii Jimcada ahayd warar hoose ayaa sheegaya in Maxamed Cirre mar kale uu ka qayb gali doono showga Hodan Cabdiraxmaan isaga oo sheegay in labada fanaan uu u dhaxeeyo fanaaniinta qaar xidigaha geeska ka tirsan ayaa la sheegay in showgii Farxiyo Kabayare ay ka maqnaayeen kan Hodan Cabdiraxmaan Dheere ay ka maqnaan rabaan oo aysan soo xaadiri rabin sabab la xiriira in ay ka xumaadaan labada fanaan waxaana taasi u muuqataa loolan adag oo ka taagan magaalada Hargeysa waxaana hadda soconaya loolankaasi iyada oo ugu dambeyn la sugayo sida ay wax noqon doonaan Hodan waxa ay moodaa in sanadka cusub ay leedahay Hargeysa iyada oo Farxiyo Kabayarana ay ku fududaatay showgeedii oo degdeg u ahaa iyada oo islahayd ka hormar Hodan Cabdiraxmaan hase ahaatee show aanu sida u buurneyn oo uun muuqaal laga baahiyay ayay qabsatay Farxiyo Kabayare laakiin waxa la sugayo waa Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo waxa ay ka qaban doonto iyo sida ay yeeli doonto showgeeda soo aadan ee Hargeysa